بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ما أنت وحن جعليستي إن أن إذن لن وذاقو ستح قصة إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسي إنه شيء. qisada koowaad ee ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa inoogu sheegayo sidaan ogsoonnahay ilaah subxaanahu watacaala wuxuu ku leeyahay bilowga suuratu yuusuf naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bima awxaynaa ilayka hada alqur'aan wain kunta min qablihi lamin alghaafiliin. aayad suuraddan dhammaadkeedan ilaah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay laqad kaana fii qisasihim cibratun liuli lalbaab. ilaah subxaanahu watacaala aayaadkan wuxuu inoogu sharaxayaa in uu ilaah subxaanahu watacaala qur-aankan inoogu sheegayo qisooyin aada u cajiib ah. run ahaantii walaalayaal qisada koowaad aan raba inaan idinla wadaago maanta ayaa waxaa ah qisadii haabiil iyo qaabiil oo ilaahi subxaanahu watacaala inoogu waramay suuratulmaa-ida. walaalayaal sidaan ogsoonnahay ilaah subxaanahu watacaala suuratulmaa-ida wuxuu inoogu waramay qisadii qaabiil iyo haabiil. markii uu qaabiil dilay walaalkiisa haabiil ilaah subxana watacaala wuxuu leeyahay fabacatha allahu ghuraaban yabxathu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari saw'ata akhiih. ilaahi subxaanahu watacaala marka uu qaabiil walaalkiisa haabiil dilay wuxuu usoo diray tukahaasoo dhulka qodayo siduu ugu duugo walaalkiis si u tuso qaabiil inuu asagana ficilkaas camal sameeyo uu walaalkiis duugo. walaalayaal qisada labaad ee aan raba inaan idinla wadaaga ayaa waxaa ah qisooyinka ilaahi subxana watacaala inoogu waramay suuratu naml. ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay xataa idaa aatow calaa waadi namli qaalat namlatu yaa ayuha namlu dkhuluu masaakinakum laa yaxtimanakum sulaymaan wajunuud wahum laa yashcuruun. qisadii quraanshada aadka u cajiibka ahayd markay u warantay ay badbaadisay quraanshooyinkii oo dhan waxay ku tiri quraanshooyinoo gala guryihiina yaysan sulaymaan iyo ciidankiisa idinku joogjoogsanin iyagoonan dareemaynin. run ahaantii waxaan ka faa-iideynaa qisadan in hal quraansho ay badbaadisay quraanshooyin aada u fara badan. walaalayaal qisada saddexaad ee aan raba inaan idinla wadaaga ayaa waxaa ah qisadii hudhud. walaalayaal waxaan ogsoonnahay hudhud inuu ka mid ahaa shimbiryaashii u shaqayn jiray nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam. hudhud qisada uu qur-aanka ilaah subxana watacaala noogu sheegay waxaa weeyaan inuu hudhud badbaadiyey qoom dhan. ilaahay ka sogow ilaahay ku suko waxaa sabab u ahaa qoom dhan ay naag dumar ah u ahayd boqorad inuu badbaadiyey. markaasuu ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiisa ku leeyahay inuu soo arkay hudhud qoom u sujuudayo qoraxda. inii wajadtu imra'ata tamlikuhum wa uutiyat min kulli shayin walaha carshun cadiim wajadtuha wa qowmaha yasjuduuna lishamsi min duuni illahi wazayana lahum shaytaanu acmaalahum. wuxuu leeyahay ilaah subxana watacaala noogu waramaya aayaadkan inuu hudhud soo arkay qoom u sujuudayo qoraxda ay naag dumarna ee boqorad u tahay. qisadaasna ilaahi subxana watacaala qur-aanka noogu sheega waa qiso aada u cajiib ah. hudhud shimbir oo dacwad u baxay ilaahi subxaanahu watacaala siduu ugu yeero dad qoraxda caabudayo. sababtoo ah ilaahi subxaanahu watacaala raalli kama aha in loo sujuudo wax kale. sababtoo ilahi subxana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wa min aayaatihi alleylu wannahaaru waashamsu waalqamar laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar wasjuduu lilahi aladii khalaqahunna in kuntum iyaahu tacbuduun. ilahi subxaana watacaala aayaadkiisa waxaa ka mid ah alleylu wannahaaru waashamsu waalqamar. ilahay kadibna wuxuu leeyahay laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar. qisadana waxaa ka faa-iideynaa inuu hudhud soo arkay qoom u sujuudayo qoom qoraxda caabudayaan. ilaahi subxaanahu watacaala tawfiiqa hana waafajiyo walaal. ilaahi subxaanahu watacaala mithaalo badan wuxuu nagu tusinayaa inuu xayawaankana tusayo waxyaabo aada u cajiib ah oo bil-aadanka u baahan yahay maskaxdiisa iyo qalbigiisa inuu ka dhaadhacsiiyo. run ahaantii saddexdan qisan waxaa loo baahan yahay in lagu fikiro walaalayaal. sababtoo ah wuxuu leeyahay hudhud alaa yasjuduu lilahi aladii yukhriju alkhaba'a fi samaawaati waalardi. bal ka waran hudhud xayawaan oo saas dhahaya ilaahi subxaanahu watacaala ugu yeeraya dadka. walaalayaal haddii aada jeceshihiin inaad diintan
aad horumar gaarsiisaan wallahi ilaahay subxaanahu watacaala wuu idin caawinayaa ilaahay garabkiinana wuu galaya sababtoo ilaahay subxaanahu watacaala shimbir ayuu tusaale nagu siinayaa in diintan ay fududahay in dadka loo soo bandhigi karo oo ilaahay subxaanahu watacaala loogu yeeri karo ilaahay subxaanahu watacaala tawfiiqda hana waafajiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu insha allah hadda kadibna waxaan isku dayaa qisooyinka qur-aanka ku jiro ee ilaahay subxaanahu watacaala zaa'id noogu waramayo ee nafsadeena u fiican inaan idin soo gudbiyo insha allah intii aan ka fahmo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanayaa tawfiiqda inuuna waafajiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu